boqol maalmood ayaa ka soo wareegatay markii la ansixiyay xukuumadda ra'iisul wasaare xasan cali khayre waxaana uu taabigeliyay habraaca dowladnimada adkeynta maamulka iyo sareynta sharciga. xasan cali khayre waa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waana ninkii ugu da'da yaraa ee qabta xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waana aqoonyahan Soomaaliya oo ku xeel dheer arrimaha maamulka. waxaa muddo 100 maalmood uu hogaaminayay xukuumad barnaamijkeedu yahay dal abni ah, garsoor daacada, dad wada jira iyo dawlad isku filan. markii ugu horeysay ee xilka loo magacaabo wuxuu soo dhisay xukuumad uu ugu talagalay inay fuliso barnaamijkiisa siyaasadeed si dalka loo gaarsiiyo marxalad ka duwan marxaladda uu ku sugnaa. xilligaasi dalku waxa uu ku sugnaa abaare saameeyay malaayiin Soomaali ah oo ku noolaa dalka gudihiisa, dadkaas oo haystay nolol aad u liidata waana adkay dadkaasi inay helaan nolol ay kaga samato baxaan xaaladda abaareed ee dalka ka jirtay. wuxuu dhisay guddi wax ka qabta abaaraha kuwaas oo ku dadaalayay isla markaana wax wanaagsan ka qabtay dhibaatadii abaaraha ee Soomaaliya iyagoo kaashanaya shacbiga Soomaaliyeed ee ku nool dunida daafaheeda. sida aan ugu gurmano dadka Soomaaliyeed maanta ayaa waxay wax ka sheegi doontaa taariikhda ummadda Soomaaliyeed. sidaas daraadeed qof walba oo Soomaali ah meel walba ay joogto qofkii $1 bixi kara, qofkii 5 bixi kara, kii 100 bixin kara, kii ka badan bixin kara, qofkii kiilo bariis bixin kara, qofkii kiilo bur bixin kara, qofkii kiilo timir bixin kara iyo qofkii dharkiisa ka batay qaar bixin kara. waxaan rabaa inaan idin sheego wax la quursado ma yaalin maanta, wax walba oo awoodaan inaad bixisaan. dadka Soomaaliyeedna waa inay iyagu isku tashtaan cid kale oo lagu tashan karana. si loo helo miisaan sax ah oo lagu cabiro xaaladda siyaasadda Soomaaliya waa in taariikhda la raad raaco oo aan wax ka soo baran dhacdooyinkii iyo meertooyinkii isgurayay ee soo taxnaa 26 sano ee ugu dambeeyay. Soomaaliya ma ahan dad laha dawlad dhexe oo dhisan oo dalkeeda gacanta ku wada haysa, waa qaran burburay oo u kala qaybsamay mandiqado ama gobollo maamul dawladeed leh kuwaas oo leh calan, madaxweyne, baarlamaan iyo wasiir. waa dad kala aamin baxay oo u baahan in dib la isugu soo noqo oo isla markaana dib la isugu furo. xukuumaddu waxa ay qabatay shir dib u heshiisiin oo baaxad weyn oo ay ka qayb galeen madaxda qaranka si dadku ay u helaan fursad ay kaga wada hadlaan kuna iloobaan wixii la soo maray. kuwa siyaasiyiinta madaxda ama kuwa hadda aan xukunka joogin waxaan kula dardaarmayaa haddii aad rabtid Soomaaliya inaad berito madax ka noqotid waa inaad ka sii shaqaysaa dalkii aad madaxda ka noqon lahayd. haddii aad rabtid inaad u timaadid kursi aad beri ummadaada ku maamusho waa inaad sii bilowdaa dhagaxyadii lagu dhisi lahaa inaad sii dhistid. dadka Soomaaliyeed baahida koowaad waxay u qabeen ammaan ka hirgala gayiga Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. maalintii waxaa caasimadda Muqdisho ku dhiman jiray dad fara badan oo qaarkood ayagoo waxba galabsan ay qaraxyadu galaafan jireen. xukuumadda xasan cali khayre muddadii 100 maalmood ahayd waxay hirgelisay barnaamij loogu magac daray xasilinta caasimadda. waxaa la dhisay ciidamo ka howlgalaya caasimadda waxaana loogu baaqay ciidamada hubeysan ee magaalada ka howlgala in ay hubkooda ka xareeyaan magaalada. waxaana la mamnuucay magaalada Muqdishona laga mamnuucay iyo nawaaxigeeda hubka waaweyn. waxaa la bilaabay kormeer iyo dabagal hubka sida sharci darrada ah magaalada u dhex yaala. talaabadaasi waxay abuurtay in ammaanka caasimadda wax weyn uu iska bedelo. ra'iisul wasaaruhu wuxuu bilaabay kormeer joogto ah oo lagu xaqiijinayo amniga. marka koowaad waxaan idinkaga mahad celinayaa sida aad waddankiina uga difaacdaan cadowga. waxaan idinkaga mahad celinayaa in aad naftiina u soo diyaarisaan inaad dalkiina u hurtaan. qofka bini aadanka waxa ugu weyn oo bixin karo waa noloshiisa. haddii aad aqbasheen noloshiina inaad u bixisaan dalkiina, dalka iyo dadkuba abaal idinkaga hayaan. xukuumaddu waxay idin ballan qaadaysaa in bil walba marka ay dhamaato aad heshaan mushaarkiina. sidaas oo kale
cadaaladda iyo dhismaha adeega garsoorka waxa uu ka mid ahaa baahiyada kala duwan ee dalka Soomaaliya ka jira. muddadii 100 maalmood ahayd waxaa madaxweynuhu ku baaqay in aan loo dulqaadan karin cadaalad darrada, waxaana uu magacaabay guddi u kuurgalaya heerka cadaaladda ee Soomaaliya, waxaana xabsiga laga sii daayay dad ka badan 100 qof oo qaarkood si aan waafaqsanayn sharciga xabsiyada ugu jiray muddo fara badan. ammaano iyo amni waa hawl iswadata oo hadda aan wadno. cadaaladda soo fiirsada, soo ogaada 3 bilood soo socota waxaan ka qabanay cadaaladda. cadaalad waa dhammaatay. ummadan Soomaaliyeed oo dhibaataysan in xaqooda heli waayaan wax fiican ma aha. ragga odayaasha oo xaakimiinta ah waxaan idin sheegaynaa haddii awal ay jireen inaad guryo xukuntaan 5 jeer oo isku rogtaan waqtigeeda waa dhammaaday. Ra'iisul Wasaare Khayre wuxuu sidaas oo kale xabsiga Itoobiya ka daayay dad Soomaali ah oo muddo fara badan xabsiyadaasi Itoobiya ku jiray, waxaana uu ballan qaaday in dadka Soomaalida ay ku jira xabsiyada dunida uu dib u eegid ku sameyn doono, isla markaana wixii awoodda dalka ah uu u qaban doono. dib u dhiska ciidamada wuxuu ahaa lafdhabarka dawlad waxqabad leh oo loo dhan yahay. arrimahan iyo qaar kale oo badan waa halbeeg baahi weyn loo qabay si loo soo celiyo sharciga iyo ammaanka dalka. waxaa dib loo bilaabay la xisaabtanka ciidamada si loo sugo amniga iyo xasiloonida. markii xuquuqda ciidamada la dhowray, xukuumaddu waxay ballan qaaday bixinta mushaarooyinka ciidamada, waxaana bilowday tababaro joogto ah oo lagu xaqiijinayo howl maalmeedka ciidamada. wax ilaahay loogu mahadnaqo, laakiin waa wax ay tahay inaan ku mahadcelino ciidamada har iyo habeen u taagan inay sugaan amniga. waxaa kaloo mahadcelinaya mas-uuliyiinta kale, wasiirada iyo taliyayaasha, gudoomiyaha gobolka oo runtii aad mas-uuliyad weyn isaga saaray in ramadaankan uu ka duwanaado ramadaanada. markii ugu horeysay uu ku dhaqaaqay howlaha qaranka, ra'iisul wasaaruhu wuxuu wax ka bedelay hanaankii shaqo ee soo jireenka ahaa. wuxuu soo rogay in shirarka golaha wasiirada ay noqdaan kuwa natiijo dhammaystiran ay ka soo baxaan si shaqooyinka goluhu u noqdaan kuwa dabagal leh. waxaana bilowday isla xisaabtan joogto ah oo ra'iisul wasaaruhu uu kula xisaabtamayo xukuumaddiisa. waxaa ra'iisul wasaaruhu soo saaray waqti shaqaalaha dawladdu ay shaqada galaan iyo xilli ay shaqada ka rawaxaan. labadan arrimood waxay saldhig u yihiin anshaxa mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha dawladda oo ah adeegayaasha qaranka iyo shacbiga Soomaaliyeed. 100 maalmood markuu dhamaado hadda waxaan nahay meel dhaxal ah hadda joogna. marka 100 maalmood dhamaato sidoo kale hadana sidaan oo kala dhaxayso waa la soo yeeri doona. marka wasiirro waxaa jiri doona oo howlihii loo igmaday ama ay soo bandhigeen ka gudbi doona oo kadibna samayn doona kii sanadlaha ahaa. wasiirro waxaa jiri doonaan u baahnaan doona xoogaa yar in laga caawino ama caqabado ay jiraan oo u baahan in wadatashi gol ahaan laga sameeyo si wixii loo furfuro. musuqmaasuqu waa cadawga koowaad ee dumiyey dowladihii ka horeeyay dowladda hadda jirta. xukuumadda uu hogaamiyo Xasan Cali Khayre waxaa muhiimadda koowaad ay siinaysaa ka hortagga musuqmaasuqa, waxaana xubnaha golaha wasiirada ee cusub ay dib ugu noqdeen dhammaan howlahoodii shaqo, isla markaana waxay ka howlgaleen xafiisyadii dowladda. waxaan ku guulaysanay inaan oogno albaabo badan oo u furnaa dowlad xumo iyo musuqmaasuq. waxaan kor u kacay dakhligii soo geli jiray dowladda. waxaan dib u habayn lagu sameeyey qaabka loo maareeyo bixitaanka kharashaadka dawladda oo dhan. waxaan bilownay inaan ka shaqayno sidii la isugu keeni lahaa khubaro nagala shaqaysa kobcinta dhaqaalaha dalka oo dhan. muddada gaaban ee xukuumaddani ay jirtay waxaa howlaha amniga, maaliyadda, garsoorka iyo dhismaha ciidamada barbar socday howlo horumarineed iyo nadaafad iyo wanaajinta xiriirka caalamiga. waxaana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu dhagax dhigay qaar kamida wadooyinka waaweyn, waxaana sidaas oo kale bilowday nadaafadda magaalada caasimadda ee Muqdisho oo muddo 25 sanadood ah aan hirin daryeel. shacabka Soomaaliyeed ee maanta ka qayb galay soo celinta bilicda magaalada Muqdisho, waxaan mahadcelinayaa wasiirada iyo shaqaalaha wasaaradaha kala duwan oo kulligood maanta u soo labistay xildhibaanada senatarada u soo labistay inay nadiifiyaan. xukuumaddan cusub waxaa dadka Soomaaliyeed ay ku soo dhaweeyeen habka isdhexgalka bulshada ee madaxda qaranka iyo dadweynaha,
waxaana uu bilaabay ra-iisul wasaare khayre dhaqan ku cusub siyaasadda soomaaliya oo ah in dowladnimada dadka loo dhoweeyo oo la abuuro buunto isku xiraysa dowladda iyo dadweynaha. waxaana dadka soomaaliyeed loogu tagay goobihii ay degganaayeen iyo goobaha isugu soo baxaan. ciidamada waxaa lala qabtay shaqooyinkooda iyagoo loogu tagay goobihii ay shaqada ka wadeen. habkani waa hab ka duwan hababka soomaalidu wax ku maamuli jireen. dhammaan dadka soomaaliyeed badankoodu waxa ay qirayaan inay jiraan tallaabooyin waxqabad leh oo loo qaadayo dhinaca dowladnimada, waxaana muuqata inay jiraan isla xisaabtan iyo dabagallo joogto ah oo lagu xaqiijinayo shaqada iyo howlwadeennada dowladda. dad aad u badan oo soomaali ah ayaa taageero u muujiyey dowladda federaalka ee soomaaliya. inkastoo ay muuqato shaqo la qabtay oo ka badan 100 maalmood, haddana weli waxaa muuqda in loo baahan yahay waxqabad ballaaran si wax looga qabto dhibaatooyinka jira oo loo gaaro soomaaliya oo isku filan oo soo ceshata sharafta iyo karaamada ay caalamka ku lahayd. raggan iyo dumarka halkan yimid oo daawanaya kuwa TV-yada hadda horteyda taagan, waxaan idin sheegayaa sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada iyo dowlad goboleedyada dalkan mas'uulka saaran yahay ayaa idinkana dalkan mas'uulka kaga saaran yahay. ma aha markii ugu horeysay ee Soomaaliya loo dhiso xukuumad lagu sheego inay tayo leedahay, laakiin marna ma aha xilligii ugu horeeyay ee Soomaaliya ra'iisul wasaare loo magacaabo, mana aha waqtigii ugu horeeyay ee xukuumad 100 maalmood ay u dhamaato. Soomaalida iyo Soomaaliyaba waxa ay soo mareen marxalad la mid ah marxaladahan, laakiin waxa isweydiin leh maxay ku kala duwan yihiin xubnaha hogaamiya xukuumadda iyo waxqabadka ay sameeyeen. ma la jooga xilligii Soomaaliya ay isbedeli lahayd? ma loo baahan yahay in dalka Soomaaliya amaba dadka Soomaaliyeed ee dibadda ku nool ay gacan siiyaan dowladooda? marxaladan maanta ma lagu qanci karaa waxqabadka xukuumadda dalka ka jirta? maxaase ilaa hadda aan la gaarin oo u baahan in wax laga qabto? su'aalahaas oo dhan waa barnaamijkayga dood wadaag ee caawa.